magacaygu waa Xaliimo Xasan Tacshiir waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaan ahay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho ku soo barbaaray waxna ku bartay waxaan ku dhashay degmada Hodan waxaan ahay ardayda dhigata jaamacad heerka koowaad ee jaamacadda waxaan dhigtaa jaamacadda Simad University aan ka barto kulliyadda accounting ama xisaabaadka waxaan qoray buugan la magac baxay hooyo waa lama huraan buugani wuxuu soo koobayaa oo ka hadlayaa qiimaha ay hooyadu leedahay iyo xaqa hooyadu ay inagu leedahay walow aan ogsoonahay qiimaha hooyadu inaanan gudi karin haddana waan isku dayay inaan buugan ku soo koobo wax yar inkastoo aanan hooyadu lagu soo koobi karin hal buug ama hal oraa haddana waxaan jeclaystay inaan buugan qoro aan la wadaago bulshada dareenka hooyanimo horta marka horeeto waa maxay hooyo hooyo waxa waaye markii laga hadlaayo muhiimadda ay inoo leedahay hooyadu ma ahan mid halkan lagu soo koobi karo aad ayaan ugu riyaaqayaa buugan inaan soo saaro wuxuu soo koobay ciwaano badan buugan ciwaanada soo koobay waxa kamid ah xaqa hooyadu inagu leedahay waa maxay hooyo qisooyinka iyo lagu sheegay quraanka haweenka quraanka lagu sheegay wuxuu kale ka hadlayaa buugan dhaqankii Soomaalida wuxuu hooyo ka dhahay sidoo kale buugan wuxuu ka hadlayaa maasooyinka iyo waliba maasooyinka iyo abwaanada sida uga hadleen maasooyin badan ay ku soo koobeen qiimaha hooyadu leedahay waxa kamid ah abwaankeeni weynaa Maxamed Ibraahim Marsame Hadraawi qisadiisina buugan way ku jirtaa runtii Hadraawi si fiican ay uga hadlay qisada buug uga sameeyay heestii hooyo sidoo kale waxa kamid ah Careys Ciise Kaashe saarkiisa waxa kamid ah xaqa hooyadu inuu leedahay markaan ka hadalno soo qaadano ciwaankaas maalmaha kamid ah ayaa rasuulka waxa uu yimi nin markaasuu dhahay qofkee ugu horeeya ee aanu samafalaa rasuulku wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam hooyo mar labaad ayuu ku celiyay markaas wuxuu dhahay hooyo mar saddexaad ayuu ku celiyay haddana wuxuu nabigu ugu jawaabay hooyo markii afraad ayuu wuxuu dhahay aabo taamicnaheedu waxay tahay hooyadu xaqeeda inaanan gudi karin marnaba haddii aan waxyaabaha aan dunida ku haysano dhan hooyo u rarno runtii ma ahan mid aan gudi karno abaalkeedana ma ahan mid aan halkan ku soo koobi karno sidoo kale waxaa jiray xadiis kaleeto oo ka hadlaayo xaqa hooyada maalmaha kamid ayaa sidoo kale waxa uu yimi rasuulka nin markaas wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan ka qayb qaato jihaadka islaamka markaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay marka hore su'aashu weydii waxay ahayd ma nooshahay hooyada markaas ninku wuxuu ugu jawaabay haa way nooshahay hadaba baxtag oo noqo hooyada u tag jannada aad raadinayso waxay ku jirtaa labada lugood hooyada labadeeda lugood dhexdeeda marka anagoo intaas ka duuleena ayaa waxaan jeclaystay inaan dareenkayga la qaybsado bulshada Soomaaliyeed hooyadu waa lama huraan runtii waxa kamid ah abwaan Hadraawi heesiisa wax yar soo qaadano hooyay la'aanta digaad lama barteeno hooyay la'aanta hadal lama kareeno ruuxaanad habino walba aanad heesiyo hoobay ku sabino hawshaada waayaa ana qaadi maayee hooyay kolba aanad heesiyo hoobay ku sabino hawshaada waayaa ana qaadi maayee hooygii kalgacalkee naxariista habataay hooyoy dushaada nabad lagu helaaye hooyoy dhabtaada hurdo lagu gamaaye hooyoy taftaada dugsi laga helaa waxa lagu halmaalaa hooyo ababintaadee hayin lagu badhaadhaay hogo lagu qaboobaay gogol lama huraanee dugsigii hufnaantaay hiddo lagu aruuraay buugga waxaa igu dhiirigeliyey inaan qoro marka hore waalidkayga hooyaday habaryartay iyo waliba familkayga ay igu dhiirigeliyeen waxa kaleeto igu dhiirigeliyey waxaan kamid ahay ani marka hore naadiga akhristayaasha xamar oo aan ka ahay gudoomiye ku-xigeenka naadiga akhristayaasha xamar naadigaas marka wuxuu qabtaa dhalinyarada wuxuu qabtaa uu dhiirigeliyaa akhriska iyo qoraalka waxa ii suura gashay marka ii sahlay naadigaas inaan ku biiro kadibna halkaas dhiirigelin badan aan ka helo halkaasna qoraalkayga aan ka bilaabo buugan waxaan bilaabay sanadka markuu ahaa
ahaa 2017 bilowgeedii wuxuu ii soo gabagaboobay sanadkan aan ku jirno 2018 bandhigiisii koowaad aan ku qabtay akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta 19 abriil markay ahayd maalmo khamiis ah dhiirigelinta ugu koowaad waxaan ka helay naadiga akhristayaasha xamar asaasaha naadiga akhristayaasha xamar oo buugan gacan weyn ka geystay tafatirkiisa iyo waliba soo bixitaankiisa ilaa iyo mar walbana igu garab taagnaa buugan sidoo u soo bixi lahaa dhalinyarada jecel inay akhriska iyo qoraalka waxaan ku dhiirigelinayaa inay ku soo biiraan naadiga akhristayaasha xamar si ay u helaan hal abuurka ku jira si uu banaanka u yimaado falcelinta ugu koowaad waxay mar walba waxay dadka igu celcelinayeen adigu hooyo ma tahay yani hooyo mar walba igu soo celinayeen hooyo ma tahay yani adigu hooyo ahayn sidee yani dareenkaas aad ku soo bandhigi kartaa oo kale marka anigana research badan aan sameeyay iyo baaritaano badan aan sameeyay ayaan ku qoray buugan waxa isku soo aruuriyay research badan sidoo kale wuxuu ka hadlayaa marxaladaha hooyadu ay soo marto ilmaha ay ka marto uurka oo kaleeto bilow ilaa dhamaad marxaladaha walaac oo kale ee marayso hooyadu uurka markay qaado ilaa ay inta ka dhalayso inta u dhaxayso buugga uu ka sheekeenaya sidaan wada ogsoonahay hooyo dhibaato badan ayay naga soo martaa ayadoo gabar ah qurux badan ayaa la guursanayaa kadib waxa isbedelayo bilooyin kadib waxa isbedelaya jismigeedii quruxdeedii iyo waliba haybadu ay lahayd hooyadu way isbedelaysaa waxa isku bedelaysaa waa adiga darta ama ilmaha ay caloosheeda ku sudo dartood halahaas oo dhibaato ah ee marayso hurdo la'aanta ee marayso rafaadka ee marayso waxa kaga muhiimsan inay mar uun ilmaheeda soo baxaan banaanka ay dhabta ku qabatay naxariista yani wixii marmarka qaar sugi laadahaybo dareenka yani xanuunka iyo waxa soo dhan waxa ka weyn dareenka ay ku qabto ina mar uun banaanka soo baxdo ee hooyadu dhabta kugu qabato ilaa hadda buuga waxaan ku soo bandhigay magaalada Muqdisho oo kaliya akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta ayaa daafurkiisii koowaad buuga lagu qabtay insha Allah waxaan rajeynayaa bilaha nagu soo aadan inaan geeyo inkastoo aan jeclahay Soomaaliya oo dhan meel kasta joogto qof walba Soomaali inuu helo buugan aan jeclahay dal iyo dibadba haddana waxa qorshaha ugu horeeya ee aan ku baxayo waxay noqon doontaa insha Allah magaalada Hargeysa iyo waliba magaalada Boorama inaan ku soo bandhigo Garowe Puntland oo dhan iyo Hargeysa oo dhan aan rabaa inaan ku soo bandhigo kadib buug faayirka Muqdisho inaan ka qayb galo rajeynaa insha Allah dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa Soomaalidu waxa la dhahaa wax ma qorto wax ma aqriso taa hadda dhalinyaradena Soomaaliyeed yani way beenisay oo ah waxa soo baxay marka dambeeso dhalinyaro jecel inay qoraalka iyo akhriska iyo af Soomaaliga ay hor u mariyaan dhalinyaradu waxaan ku baaqayaa inay ku biiraan naadiyada ku jira magaalada Muqdisho halkaasna caawinaad badan ay ka helaan qoraayaal badan inay u tagaan mid walba mid ku dhow oo ku ogyahay inuu qoraaya inuu u tago inuusan la cabsan hal abuurkiisa oo soo bandhigo